gaariga iyagu qarax ma sidin 150 fuusto oo oliyaa ayuu siday caag kala ma saarnayn qarax ma saarnayn waxay dhaxtaagay waa qaraxii loogu talagalay gobolka Hiiraan ummadda Soomaaliyeed lagu afjaro waa cadamayd laba candhaa meesha ugu dambaydo oliyo iyo wixii qarxi lahaay oo inta ku taalo ajab ku taalo qarxi gaari lahaay baaruuddiisi caagada gaar oo si jiloo wata gaari nala ka hayo oo beledweyne nala kaga dhacay oo beesha xawaadla ay nooga dhacday oo maamulka uu qabtay oo gaarigaasu gaari raran uu ahaa gudoomiyaha gobolka Cali Jeyte uu ku wareejiyay niman maryooley ah oo sidaas gacanteedii looga baxshay asagiyo rarkiisii oo nala kaga dhacay gaarigayagii in nala siiyo oo nala soo cesho oo dhaca nala ka baxsho yaan rabnaa bilowgii bishan ayay xooga macwiisleyda reer Hiiraan gacanta ku dhigeen gaarigan idin muuqda ee candamiidlaha ah oo sida fuustooyin iyo caagado ay ku jiraan sida la sheegay dareerayaal midabkoodu yahay madow iyo budo ku jirta caagado agabka gaarigan uu sido waa mid la doonayay in lagu gumaado shacab Soomaaliyeed sida ay ku doodayaan kooxda haysata gaarigan laakiinse beesha reer Sade ee caabud waqtigan ayaa ku doodaysa dhankooda in gaarigan iyo hantida saaran uu leeyahay ganacsade beesha u dhashay ayna u rarayd magaalada Muqdisho saraakiisha ciidamada gaarigan gacanta ku haya oo dhowr muuqaal hore isaga soo duubay ayaa sheegay in waxa gaarigan lagu soo raray ay yihiin agab la doonayay in qaraxyo waaweyn loo adeegsado iyagoo sameeyay tijaabooyin ay ku muujiyeen agabka gaarigan uu sido kuwaasi oo cadeynaya inay yihiin maadooyin loo adeegsado qaraxyada iyagoo u cuskaday laba arrimood oo mid tahay in budada gaarigan uu sido ay sameynayso gubasho xoog leh markii la tijaabiyo oo dab la qabadsiiyo iyo in aysan jirin wali xiriir ay ka heleen ciddii lahayd hantida saaran gaarigan aysan jirin cid la soo xiriirtay oo sheeganaysa hantida gaariga uu wado kooxda gaarigan gacanta ku haysa ayaa sheegtay in agabkan uu u rarnaa kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab qaybna uu ka ahaa weerar abaabulan oo la doonayay in lagu beegsado qaybo kamid ah deegaanada ay beesha xawaadla degto ee iska caabinta kula jirta kooxda Al-Shabaab saddexlayaal ku jiraan shanlayaal ku jiraan tobanlayaal ku jiraan sababtay qotmaan fuusoo ku jiraan waa kow inta goobood oo Al-Shabaab maran xoog oo kaliya maray ka careen aad daba taagnin oliyadaas madoobaad jirga 20 layaal iyo saddexlayaal ku jirto baaruudi la isqurnuga soo carareen anoo ka soo gurbinayna caagadayaal ku saaran marka laga soo tagay eedeymaha kooxda gaarigan gacanta ku haysa reer Hiiraan waxa iyana caawa warbaahinta la hadlay beesha Sade odayaashooda oo caawdu aqshir jaraa'id ku qabtay iyagoo ugu baaqay beesha xawaadle in wax garadkooda iyo madaxdooda heer maamul aysan indhaha ka duwan arrinta gaarigan balse ay wax ka qabtaan oo ay ku soo wareejiyaan gaarigooda odayaashan ayaa sheegay in gaarigan iyo agabka saaran uu leeyahay ganacsade reer caabud waaq ah oo aan wax wada shaqayn iyo xiriir ah midna aan la lahayn Al-Shabaab sida ay hadalka u dhigeen gaari nala ka hayo oo beledweyne nala kaga dhacay oo beesha xawaadla ay nooga dhacday oo maamulka uu qabtay oo gaarigaasu gaari raran uu ahaa oo maamulkii gaarigii markii la qabtay isteeshinka la geeyay markii isteeshinka la geeyay gudoomiyaha gobolka Cali Jeyte uu ku wareejiyay niman maryooley ah oo sidaas gacanteedii looga baxshay asagiyo rarkiisii oo nala kaga dhacay gaarigaasaan waxaan u nahay ergadaas waa erga xawaadle waa erga reer beledweyne waa erga maamul waa erga dawladda Hirshabeelle iyo gudoomiyaheeda ergadaasaan nahay waxaan erga u nahay gaarigayagii inaan helno dakana ma kala hayn karno dad islaam ah oo wada dhasho walaalahan nahay nin walbana guri buu degan yahay iyo deegaan waxaan rabnaa oo dadka islaamka ka rabnaa deegaanka degan oo beesha xawaadla ka rabnaa oo maamulka ka rabnaa oo dawladda Hirshabeelle ka rabnaa oo dawlad ugaas khaliif ka rabnaa gaarigayagii in nala siiyo oo nala soo cesho oo dhaca nala ka baxsho yaan rabnaa intaasaan erga u nahay intaasaan doonaynaa annagoo ah beesha reer Siya Xuseen اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المهدي الرحمة بالبركاته ومن المخلوقات على آله وصحبه وسلم أما بعد والكان وحن وفرنا إرجو يدو إرجو إسلام
waa erga Soomaaliyeed waa erga Hirshabeelle waa erga gobolka Hiiraan waxaan nahay odayaashii iyo ismadii beesha reer Siyaa Xuseen waxaa jira oo ergadayadu ku saabsan tahay bilowgii bisha Oktoobar yaa gaari anagu aan leenahay oo reer sida barbarana ka soo baxay xamarna u raran oo ganacsato u raran in lagu qabsay beledweyne kastanka markii la canshuuray oo gaarigii tagi lahaa ka bacdi in la yiri waa laga shakiyay markii dhowr bari aan anaguna la hadalno maxaa gaariga lagu haystaa waxa la yiri waa laga shakiyay gudoomiyaha gobolka Amar Baxsho wuxuu yiri ilaa amar dambe gaariga waa baaraynaa hayaalo 7 bari markii gaarigii yaalay meeshii anaguna erga iyo hadba cid aan la hadlaynay gudoomiyaha gobolka Cali Jeeta laga warsugayana nala ku siiyay warbixintaas yaa lala tagay gaarigii waxa la tagay niman qabiil ah oo xawaadlo ah waxaan ka yaabnay oo qalad ah gaariga raran oo maamul iyo dawlad gacantooda galay hadduu qalad leeyahay maamulka la rabay inay ku qabtaan hadduuna dambi lahayn maamulka la rabay inay ka warbixiyaan arintaasi waa qalad waa qabiilku inuu galo gacantiisa gaariga kadibna markii qabiilku la tagay waxbay dab shiishideen waxbay isku dareen oo qabiilku waxay yiraahdeen qarax buu sidaa gaariga iyagu qarax ma sidin 150 fuusto oo olyaa ayuu siday kala ma saarnayn qarax ma saarnayn qabiilka aanu argoonayna waa salaamayna waa beesha reer Siyaa Xuseen oo deegaankeedu yahay Caabudwa waxaan mar labaad mar saddexaad mar afraad ergowna walaalayaal deriso eedlaawo gaarigaas annaga iskale booli maahan dhac laguma soo gelin waa dhididkayagii qaraxna ma saarayn gaari nadiif ah oo qarax saarayn buu ahaa xataa ka dhuuban mayno inta maxkamad la keeno wixii saaraa 150 fuustaa saaran waxa saaran inta maxkamad la keeno hal lagu cadeeyo amni waa cadeeyo waxaan ergownahay beesha xawaali waxaan ergownahay islaamka reer Hiiraan waxaan ergownahay maamul goboleedka Hirshabeelle waxaan ergownahay ciidamada amniga hadday military yihiin hadday NSA yihiin oo ka hadday macawisleeyihiin oo ka hawlgala Hirshabeelle walaalayaal waa wada dhalanay deris baan nahay eed hore maanu lahayn mid hadda ma jeclin gaariga iyagii hanala siiyo hadduu dambi leeyahay lagu cadeeyo gaariga iyagu qarax ma sidin 150 fuusto oo olyaa ayuu siday kala ma saarnayn qarax ma saarnayn waxay dhex taagan yihiin waa qaraxii loogu talagalay gobolka Hiiraan ummadda Soomaaliyeed lagu afjaro waa cadamayd laba candhaa meesha ugu dambaydo olyo iyo wixii qarxi lahaay oo inta ku taalo ajab ku taalo qarxi gaari lahaay baaruudiisi caagada gaaro si jiloo wata gaari nala ka hayo oo beledweyne nala kaga dhacay oo beesha xawaadla ay nooga dhacday oo maamulka uu qabtay oo gaarigaasu gaari raran uu ahaa gudoomiyaha gobolka Cali Jeete uu ku wareejiyay niman maryoolay ah oo sidaas gacanteedii looga baxshay asagiyo rarkiisii oo nala kaga dhacay gaarigayagii in nala siiyo oo nala soo cesho oo dhaca nala ka baxsho yaan rabnaa bilowgii bishan ayay xooga macawisleyda reer Hiiraan gacanta ku dhigeen gaarigan idin muuqda ee candamiidlaha ah oo sida fuustooyin iyo caagado ay ku jiraan sida la sheegay dareerayaal midabkoodu yahay madow iyo budo ku jirta caagado agabka gaarigan uu sido waa mid la doonayay in lagu gumaado shacab Soomaaliyeed sida ay ku doodayaan kooxda haysata gaarigan laakiinse beesha reer Sade ee Caabudwaq degan ayaa ku doodaysa dhankooda in gaarigan iyo hantida saaran uu leeyahay ganacsade beesha u dhashay ayna u rarayd magaalada Muqdisho saraakiisha ciidamada gaarigan gacanta ku haya oo dhowr muuqaal hore isaga soo duubay ayaa sheegay in waxa gaarigan lagu soo raray ay yihiin agab la doonayay in qaraxyo waaweyn loo adeegsado iyagoo sameeyay tijaabooyin ay ku muujiyeen agabka gaarigan uu sido kuwaasi oo cadeynaya inay yihiin maadooyin loo adeegsado qaraxyada iyagoo u cuskaday laba arrimood oo mid tahay in budada gaarigan uu sido ay sameynayso gubasho xoog leh markii la tijaabiyo oo dab la qabadsiiyo
iyo in aysan jirin weli xiriir ay ka heleen ciddii lahayd hantida saaran gaarigan aysana jirin cid la soo xiriirtay oo sheeganaysa hantida gaariga uu wado. kooxda gaarigan gacanta ku haysa ayaa sheegtay in agabkan uu u rarnaa kooxda argagixisada ah ee al-shabaab qaybna uu ka ahaa weeraro abaabulan oo la doonayay in lagu beegsado qaybo ka mid ah deegaanada ay beesha xawaadle degto ee iska caabinta kula jirta kooxda al-shabaab. saddexlayaal ku jiraan, shanlayaal ku jiraan, tobanlayaal ku jiraan, rabtay qotmaan fuusoob ku jiraan. waa kow inta goobood oon al-shabaab maran xoog oo kiciliyo maray ka carreen aan daba taagnin qolyadaas madoobaad jirga 20layaal iyo 3layaal ku jirto. baaruudi la asqurnu ka soo carareen oo anagu ka soo gurbinayna caagadaal ku saaran. marka laga soo tagay eedeymaha kooxda gaarigan gacanta ku haysa ee reer Hiiraan waxa iyana caawa warbaahinta la hadlay beesha sida odayaashooda oo caawdu aqshir jaraa'id ku qabtay iyagoo ugu baaqay beesha xawaadle in waxgaradkooda iyo madaxdooda heer maamul aysan indhaha ka duwan arrinta gaarigan balse ay wax ka qabtaan oo ay ku soo wareejiyaan gaarigooda. odayaashan ayaa sheegay in gaarigan iyo agabka saaran uu leeyahay ganacsade reer Caabudwaaq ah oo aan wax wada shaqayn iyo xiriir ah midna aan la lahayn al-shabaab sida ay hadalka u dhigeen. gaari nala ka hayo oo beledweyne nala kaga dhacay oo beesha xawaadle ay nooga dhacday oo maamulka uu qabtay oo gaarigaasu gaari raran uu ahaa oo maamulkii gaarigii markii la qabtay isteeshika la geeyey markii isteeshika la geeyey gudoomiyaha gobolka Cali Jeyte uu ku wareejiyay niman maryooley ah oo sidaas gacanteedii looga baxshay asagiyo rarkiisii oo nala kaga dhacay. gaarigaasaan waxaan u nahay ergadaas waa erga xawaadle, waa erga reer beledweyne, waa erga maamul, waa erga dawladda Hirshabeelle iyo gudoomiyaheeda. ergadaasaan nahay waxaan erga u nahay gaarigayagii inaan helno dakana ma kala hayn karno. dad islaam ah oo wada dhasho walaalahan nahay nin walbana guri buu degan yahay iyo deegaan. waxaan rabnaa oo dadka islaamka ka rabnaa deegaanka degan oo beesha xawaadle ka rabnaa oo maamulka ka rabnaa oo dawladda Hirshabeelle ka rabnaa oo dawlad ugaas khaliif ka rabnaa gaarigayagii in nala siiyo oo nala soo cesho oo dhaca nala ka baxsho yaan rabnaa. intaasaan erga u nahay, intaasaan doonaynaa annagoo ah beesha reer Siyaa Xuseen. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المهدي الرحمة بالبركاته ومن المخلوقات على آله وصحبه وسلم. أما بعد والكان وحن وفرنا إرجو يدو وإرجو إسلام وإرجو الصوماليين وإرجو هيرشابيل وإرجو قبل كهيران وحن هاي وضياكشي يسمدي بشر هيرسيا حسين وعاشرة وإرجو يدو كسب سنتاي bilowgii bisha Oktoobar yaa gaari anagu aan leenahay oo reer sida barbarana ka soo baxay xamarna u raran oo ganacsato u raran in lagu qabsay beledweyne kastanka markii la canshuuray oo gaarigii tagi lahaa ka bacdi in la yiri waa laga shakiyay. markii dhowr bari aan anaguna la hadalno maxaa gaariga lagu haystaa waxa la yiri waa laga shakiyay. gudoomiyaha gobolka Amar Baxsho wuxuu yiri ilaa amar dambe gaariga waa baaraynaa hayaalo 7 bari markii gaarigii yaalay meeshii anaguna erga iyo hadba cid aan la hadlaynay gudoomiyaha gobolka Cali Jeyte laga warsugayana nala ku siiyay warbixintaas yaa lala tagay gaarigii waxa la tagay niman qabiil ah oo xawaadlo ah. waxaan ka yaabnay oo qalad ah gaariga raran oo maamul iyo dawlad gacantooda galay hadduu qalad leeyahay maamulka la rabay inay ku qabtaan hadduuna dambi lahayn maamulka la rabay inay ka warbixiyaan. arrintaasi waa qalad waa qabiilku inuu galo gacantiisa gaariga kadibna markii qabiilku la tagay waxbay dab shiishideen waxbay isku dareen oo qabiilku waxay yiraahdeen qarax buu sidaa gaariga iyagu qarax ma sidin 150 fuusto oo olyaa ayuu siday caakala ma saarnayn qarax ma saarnayn. qabiilkaan u ergoonayna waa salaamayna waa beesha reer Siyaa Xuseen oo deegaankeedu yahay Caabudwaaq. waxaan mar labaad mar saddexaad mar afraad ergowna walaalayaal deriso eedlaawo gaarigaas
annagaa iskale booli maahan dhac naguma soo gelin waa dhididkayagii qaraxna ma saarayn gaari nadiif ah oo qarax saarayn buu ahaa xataa ka dhuuban mayno inta maxkamad la keeno waxii saaraa 150 fuustaa saarane waxa saaran inta maxkamad la keeno ha lagu caddeeyo amni waa caddeeyo waxaan erga u nahay beesha xawaale waxaan erga u nahay islaamka reer hiiraan waxaan erga u nahay maamul goboleedka hirshabelle waxaan erga u nahay ciidamada amniga hadday military yihiin hadday nisa yihiin oo hadday macawisle yihiin oo ka hawlgala hirshabelle walaalayaalow waa wada dhalannay deris baan nahay eed hore maanu lahayn mid haddaa ma jeclin gaariga iyagii hanala siiyo hadduu dembi leeyahana